ma waxaad mooday addoontii allahy in dhimashadu fududdahay sakaraadkuna sahal yahay. waxay tiri caaisha markii ay nebiga u timid geeridu wuu miyir beelay. markuu miyirsaday ayuu wuxuu odhanaya geeridu waxay leedahay sakaraad, geeridu waxay leedahay sakaraad, allahayow iiga kaalmee dhimashada dhibaatadeeda. ma ka fakartay cidlada qabriga iyo ciriirigiisa oo jirkii camirnaa cadcad dhexdiisa ugu go-ayo? ma ka fakartay dhararka maalinta qiyaama iyo dhibaheeda iyo miisaanka camalka ee cadaaladda loo dhigi doono? waa adiga dheesha iyo cayaarta iyo doohnaanta isaga jira ah. geeridaadiina way kugu soo socotaa iyadoo siibid ruuxda looga siibayo xubin kasta oo jirkaaga ka mid ah. cid kusoo gurmana aanay jirin oo jirkaaga ruuxda u dayn ama kusoo celin. markay ruuxda kaa baxdana indhahaaga waa la dabooli, lugahana laguu fidin, madaxana yari hor lagugu soo taagi. markaasaa la dadejin diyaarintaada oo la keeni kafan iyo xunuud, biyahana la soo dhoweyn. ka waran addoontii allahy haddii aad taal gogoshaa ood ku sugan tahay birkinta, firaashkii ugu dambeeyey aad kaga jiibsatay adduunka iyo birkintii ugu dambaysay aad dunida ka barkato, oo ay ku hareero joogaan aabbaha iyo hooyada, oo ay ku hareero joogaan walaalaha, oo ay ku hareero joogaan carruurtaada iyo ninkaagii, iyagoo kugu eegaya il naxariis. aabba yaaban, marti booqasho ah, walaalo ooyaya, guri tiiraanyaysan oo murugeeya naxdintaal. adigoo sidaa ah oo xaaladaa ku sugan ay indhahaada soo hormaraan waayihii aad soo martay iyo xaalkii noloshaadii maalmihii aad ilmaha ahayd. bal ka waran addoontii allahy haddaad xaaladaa ku sugan tahay oad soo xasuusato wixii ku dhaafay cimrigaaga, siday u dhammaadeen iyo siday ku mareen iyo siday maalmaha iyo habeenada kuugu dhaafeen. orod una dhammaadeen, wax walba dhammaade. waa kuka adigana aad ka bixi rabtid adduunka aad ku dhowdahayna inaad adduunka ka goosato aakhiradana aado. alla jalla wacala wuxuu inoo suureen xaaladda. wuxuu yidhi alla weyne subxaanahu watacaala: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. waa sidaa dhammaadka iyo gabagabada. adigu xaaladdaa ku suganna addoontii allahy baa waxaa yimid malakal mawtkii.
ma garanaysid waxa aad samayn. caqligu isku darsamo, qalbiguna isdhex yaaco, cagihiina ay qaboobaan, wuxuuna bilaabay inuu ruuxda siibo. siibidda ruuxdana ka daran oo ka xanuun badan bir madaxa laysaga garaaco ama jeedal adag oo laisku jeedaliyo, bal ka xanuun badan oo ka daran minshaar qofka laba gobol looga kala dhigo. waayo qofku wuxuu dareemaa xanuun markay jirku wax soo gaaraan dhibaato ah, jirka oo ruuxda la xiriira darteed. bal ka waran haddii marka laftigeedii la siibayo. addoontii allahy, adigoo xaaladdaa ku sugan, markii laga saaro naftaadii jirkaagii oo meyd xun noqoto, aan wax nuuxsi ah lagu arag. dadkuna ilmeeyaan oo dhammaan yidhaahdaan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. way dhimatay gabadhaydii, way dhimatay xaaskaygii, way dhimatay hooyaday, way dhimatay walahashay, oo ay isu soo sheegaan dadka kalena noqdaan mid rumaysan la iyo mid qaadan la iyo mid naxdin la dhaca. bal ka waran addoontii allah, marka lagu dhiga rababtii lagugu meeri lahaa oo lagu mayro, adigoo markaa ka hor mayran jiray, maalintaasise adiga ayaa lagu meeri, kadibna waa lagu kafni. meeye dharkii qurxoona, meeye duruucdii khafiifka ahaa, may wallaahi wixii aad adduunka ku qaadan jirtay waxba kaama raacayaan. waxaad kala tegaysaa oo keliya mara dhowr mitir oo kafan la yidhaahdo. way ku kafni addoontii allah. awalna waxaad ahayd tii labisata keligeed, laakiin maanta maya oo waxaa lagu dhex gelin kafantaa dhex gelin. wayna ku sharfi addoontii allah. ma garan waxaa lagugu sharfayo dhowr marinoodoo xunuud ah oo ay si fiican u garanayaan mootida, adiguna aad baran doonto maalin maalmaha ka mid ah. kadib waxay ku eegayaan eegmadii u dambaysay ayay ku eegayaan, ayaan eegma kale ka dambayn. waxayna ku sagootintii u dambaysay. talow waa sidee xaalka hooyadaadii ku dhashay maalinta? imisay kugu siday uurka? waxay kugu siday uurka 9 bilood, iyadoo kugu soo dhibaatootay tarbiyadaadii in badan. haddii ay daal iyo ciriiri iyo culays dareento, waxay fiirin jirtay wejigaaga wanaagsan, markaasay ka tegi jireen oo dhaafi jireen dhib iyo daal kasta ay dareemaysay. laakiinse maalintaa kadib feero kale ma jidho. markaa kadib waxaa lagugu qaadi naxashkii meydka, iyadoo ay ku sidaan 4 qof oy ku qaadi. addoontii allah, waa lagugu tukan. markaa ka hor adigaa tukan jiray, way ku qaadi oo ku kaxayn adigoo awalta socon jiray. kadibna ma garan halka lagu geyn. ma waxaa lagu celin gurigaagii? may wallaahi. ma waxaa lagu celin carruurtaadii? may wallaahi. ma waxaa lagu celin ehelkaagii iyo ninkaagii? may wallaahi. waxay ku xambaari daartii dambe, waa kaaga dhammaatay dunidii. waxay ku geyn qabuurta, intee iyo intee baa lagu aasay mowti. way ku xambaari addoontii allaay, oo ku kaxayn adigoo meyd xun ah, dhaqaaqayna aadanna oranayn may. kadib way ku dhigi qabriga, waxay ku dhigi godkaagii. waxaana lagaa soo waday bilooyinkii oo qabuurtii iyo godadkii lagu keenay. nuurkii baa lagaa keenay oo mugdi gudar ah lagu dhigay. markaasi lagu dhigi iilka. waxaa u daadegaya hoos xigaaladaadii, waxayna kuu dhigi oo kuu birkin dhagax ah. kadib waxay oran ka soo bixiya hebel iyo hebel. qof oranayo ma jiro, ii soo bixiya gabadhaydii ama waa walaashay. keligaa bay kaaga tegayaan meesha addoontii allah. kadib waxaa soo baxaya 2 nin ee qabriga ku dhigay. ma garan kadib waxay kugu samayn? kadib waxay kugu boobi ciidda, kadibna wax yar bay istaagi, dabadeedna dhabarka kuu jeedin oo kaa tegi. addoontii allah, maxmiyadii diintaay, xaruntii dacwadanay, hididiiladii ummadanay, jawhartii mujtamacay, tii islaamka dhowraysay, khayr qabtadiyaay, maxaad u horumarsatay aakhiro oo aad alla la hortegi? dhegaysa hadalkan alla jalla wacala 7 samo korkood ka yidhi. alla jalla wacala wuxuu yidhi: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون
لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين markii suulka la afuufana maalintaas abtirsiinye kama dhexeeyo isweydiinna mayaan kii ay miisaanadiisu cuslaadaanna kuwaasu waa libaaneen kii ay miisaanadiisu fududaadaanna kuwaasuna waa kuwa naftooda khasaariyey oo jahannamo dhexdeeda ku waaraya naartaa wejiyadooda gubaysa oo ay dhexdeeda ahaanayaan sow aayadahaygii la idiinma akhriyi jirin oo maydan beenin jirin say yidhaahdeen rabbiyow habaar qabiddayadii baa naga adkaatay oo qoon habowsan baan ahayn rabbiyow naga saar haddii aan u noqonno annagaa daalimiin ahe suu yidhi ku fogaada hana ila hadlina waxaa jiray qaar addoommadayda ka mid oo yidhaahda rabbiyow waa rumaynay ee noo dembi dhaaf oo noo naxariiso adaa inta naxariisata u naxariis badan gabagabada risaaladan oo adiga kugu socota addoontii allah kadib markii aad ogaatay dhammaadka nolosha iyo ciribteeda waxaan doonaynaa inaan xusuusinno naftayada adigana aan ku xusuusinno addoontii allah waxa qofka uu la kaalmaysan karo ka gudubka sakaraadka mawdka iyo mugdiga qabuurta iyo imtixaanka jira iyo waxa kaalmo u noqon iyo garab markuu la kulmo oo hor istaago alla weyne jalla wacalaa ee cadaabta iyo ciriiriga qofka aakhiro uu kaga samata bixi karo wuxuu yidhi nabigeennii suubannaa sala allahu calayhi wasalam isagoo inoo tilmaamaya jidka badbaadada dhowr amarada alle ku faray si uu isaguna kuu dhowro dhowr amarada alle hortaadaad ka heliya ogow oo tixgeli xilliga barwaaqada alle ha iska kaa xil saaree marka dhibaatada ku hayso
haddii aad cid wax weydiisanaysidna alla oo keliya weydiiso haddii aad cid kaalmaysanaysana alla oo keliya kaalmayso ogow in haddii dadoo idil isu yimaadaan oo isugu yimaadaan inay wax ku taraan ayan ku tarayn wixii uu alla kuu qoray maahe haddii ay isugu yimaadaan oo isugu kulmaan inay dhibaato kuu geystaanna kuma geysan karaan waxaan ahayn wixii uu alla kuu qoray mooyaane qalimaantii waa la qaaday waraaqihiina way ingegeen waa sidaas addoontii allahy ha eegin wixii alla kaa xarimay ha u fidin gacantaada wixii uu alla kaa xarimay ha ku hadlin waxun cidnana ha xaman qofna waxa ka sheegin hadal wanaagsan inaad ku hadasho ku dadaal codkaaduna ha gaabnaado oo hadal tanaaga ah iyo cay iyo habaarka carruurtii walaalaha iska ilaali ha dhegaysan walaashii muslimadda ahi wixii alla xarimay sida xanta heesaha xun ee dhilaysaga iyo xidhiirada xun qurxiya ee dhiirogeliya ha u muujin bilicda iyo quruxdaada waxaan ahayn ninkaaga iyo kuwa aan ku geyin aan marnaba inay ku guursadaan u bannaanayn sida wiilashaada aabbaha awowga walaalkaa kula dhashay adeerkaa aabbaha la dhashay abtigaa hooyadaa la dhashay iyo wax la mid ah iska jir oo ka digtoonow dhexgalka ragga gayaankaaga ah taasi waa xaaraane aan bannaanayn waana calaamad muujin xishood la'aan iyo xildarro iskana jir oo ka digtoonow waa xaaraan maqdacahe iyane inaad meel kula keliyowdo ninku gaya xitaa hadduu qaraabo dhow yahay iska jir sidoo kale inaad keligaa safarto muxrim la'aan muxrimna waxaa ku ah ninkaaga ama ragga kuwooda aan ku geyin iskana ilaali inaad guriga ka furto cid idin la'aanta ninka iskale guriga oo mid dhoorsoon ahow walaashayda muslimadda ahay oo ha fududaysan dembiyada xitaa kuwa yaryar waayo buuruhuba waa quruurux isu tegay walaashayda muslimadda ahay noqotii alla ka baqda sir iyo caadba abaar iyo aaran wuxuu yidhi nabigeennii suubana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi alla weyne kor ahaaye ma jiraan wax uu iigu soo dhowaado addoonkayga aan ka jeclahay wixii aan ku fara yeelay ee ilaali salaadaha shanta ah oo noqotii u ilaalisa si dhan oo kaamil ah waayo salaada haddii iyada laga aqbalo camalkaaga kalena waa laga aqbalayaa haddii laguga celiyana allaynu ka magangeliye camalkaaga kalena oo dhan waa lagugu celinayaa oo walaalay tukana sunnooyinka waa sahaydaadiya waxay kuu kabi dhammaystirayaanna wixii kaa nuqsaamay xagga salaadaha faralka iskana jir inay hal salaad subax ama duhur ama casar ama maqrib ama cisho dheel kugu dhaafto ilaa wakhtigeedii baxo waayo haddii aad salaad keliya adigoo og iska dayso ilaa wakhtigeedii ka baxo waa kugu gaalnimo aad diinta kaga baxayso sida ku cad aayadaha qur'aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam asxaabtiina ay hadalladoodii ku caddeeyeen xaqiiqdii salaad la'aan waa diin la'aan waa damiir la'aan waa dullinimo iyo darxumo qofka aan tukanna waa u ka litaa daayarada iyo doofaarada ee salaada ogaaw salaada walaashay muslimadda ahay oo hanaankeeda toosi dabadeedna walaashayda muslimadda ahay ka mid noqo kuwa badsada akhrisashada kitaabka alle ee qur-aanka xaraf kasta oo aad akhriso waxaa kugu sugan ajar wuxuu yidhi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ulama jeeda alif laamiim baa xaraf ah waxaanse ula jeedaa inuu alif xaraf yahay laamkuna xaraf yahay miimkuna xaraf alla badana oo badana inta fadli ku jirta qur-aanka akhriskiisa badanaana dumarka moog arrinkaas badanaana guryaha qabuurta oo kala noqday aan lagu akhrin qur-aanka ogowna ha moogaan walaashayda muslimadda ahay xusida alle sida inaad ku wardido qowlka ah allahu akbar alxamdu lilah subxaana allah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir iyo guud ahaan wardiyada ka sugnaaday nebiga sala allahu calayhi wasalam ee la akhriyo subxaha iyo galbihii iyo munaasabadaha gaarka ah sida wakhtiga jiifka ama wakhtiga aad hurdada ka soo kacayso ama wakhtiga guryaha laga baxayo ama la soo gelayo iyo wax la mid ah waxaanu ku saarannaa addoontii allay inaad laasimto wixii alla kor ahayo ku faray sida xijaabka asturaadda oogadaada oo dhan markaad gurigaada dan uga soo baxayso ama raggayaan hay ka agdhow yihiin taa oo alla kugu waajibiyey 7 samo korkoodna uu kaa soo amray walaashayda muslimadda ahay waxaa tahay jawharad la ilaaliyey jawaahirtuna waa in la xafido jawharadaha
miyaa la xoraa ama looga tagaa suuqyada iyo waddooyinka si ay gacanta ugu dhigaan xaasidiinta iyo kuwa qalbiga ka buka? may wallaahi walaalay, islaamkaa ku dhowray, waajibna kaaga dhigay xijaabka ee noqo tii sida dhabta ah u qaadata. kuna dadaal walaashayda muslimadda ahay barashada diinta islaamka si aad adduun iyo aakhiraba ugu liibaantid. rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, qofkii jid u mara cilmi doon alla wuxuu ugu sahlaa jidka jannada. alle iyo malaa'igtiisa iyo inta samada joogta iyo arlada iyo xitaa quraanyada godkeeda ku jidha iyo kalluunka badda waxay u dembi dhaaf dalbaan kuwa dadka khayrka bara. miraha iyo faa'iidada ka dhalan barashada waa inaad wax barto dumarka. diinta iyo wanaagga aad ugu yeerto xurmadda, xushmada, xijaabka iyo xishoodka. gaarsiisi diintii alle, wanaagga farto, xumaantana reebto. ugu dambayntii walaashayda muslimadda ahay, haddii aad cid kala saaxiibayso dumarka, waxaad kala saaxiibtaa kuwa ah raaliyooyinka dhowrsoon ee rakuucda iyo sujuudda badan, muslimadaha ah iyo mu'minadaha ee xusa alla in badan. waayo kuwa waa ka mid saadka garabka iyo kaalmada ku noqon aakhirada. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى ويجعلنا هداة مهتدين. اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وارحمنا من قبل أن يقول الشيخ الكبير وشيبتاه، ومن قبل أن يقول العاصي وخيبتاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. haweenka nebigow la mid ma ahidin mid haweenka ka mid ah ee alla ka cabsada ee hadalka habdabcinnina yuusan kan qalbiga ka bukaa hunguriyoone hadal wanaagsanna dhahaya. guryihiinnana jooga, hana ismuujinina ismuujintii jaahiliyaddii hore. salaadana ooga, zakadana bixiya, alle iyo rasuulkiisana adeeca. wax kalena ma ahee alla wuxuu rabaa inuu xumaha idinka bi'iyo ahli beydkow oo daahirin idin daahiriyo. xusuustana waxaa guryihiina lagu akhriyayo oo aayadaha alle iyo xikmadda ah. allah ah xogogaal warqabeena muslimiinta iyo muslimadaha
iyo mu'min ma laha iyo mu'minad toonna markii ay alle iyo rasuulkiisu arrin gooyaan inay iyagoo ikhyaar taladooda ah yeeshaan kii alle iyo rasuulkiisa caasiyana dhumid cad buu ka dhumay xaqa waa hay-adda islaamka ee gargaarka soomaaliya b o box 33 eber 49 riyaad 11448 sacuudi carabiya telefoon 459 1226 waxay hay-adda u mahad celinaysaa tasjiilaadka annuur ee gudatay xilkan ah duubidda iyo soo saaridda cajaladan waxaynana ilaahay ka baryaynaa inuu abaal weyn uu ka siiyo